saluuga dadweynuhu ka qabaan Somaliland maanta ayaa maraya halkii iyo heerkii ugu sarreeyay maqnaanshaha cadaaladda sinaanta wax wada lahaanshaha caburinta shacabka u sinaanta dheefta adeegli boobkii xatooyada xoolaha dadweynaha qallooca nidaamka intaas iyo in kaloo isbiirsadayba waxay curiyeen su'aalo dadweynuhu geliyeen shalay iyo maantu ma mataana maxaa isbedelay waxaa taasi sababtay in dhammaan 6 gobol ee dalka haldoorkii waxgaradka dadweynaha matala ay maanta xuska 29aad ee 18 May kaga qayb galaan baaq buuxa oo ay ku saxeexan yihiin boqolaal qofkaas oo ay ku muujinayaan jidka la hayaa inuu qodax badan yahay kani waa baaq oo dhowr luuqadood ku qoran kuwanina waa baaqayaasha shacabka magacyadoodii iyo saxiixyadoodii baaqa dadweynaha ka soo baxaya ayaa muujinaya diidmada dadweynaha ee jidka la qaaday wuxuuna muujinayaa maaweelada lagala daalay bulshada in ka badan rubuc qarniga oo aan xagna loo jihaysan sidoo kale wuxuu tilmaamayaa istoorin la'aanta duqii daraad iyo tan maanta walow guuxa dadweynuhu uu yahay mid aan sii daboolaan doonin ayaa haddana baaqani waxa uu hordhac u yahay yeedhmada dadweynaha daalayo weynu diidnee dabadda kaalaya shacbiga Somaliland wax kastoo laga sheegay tiisiyaad bare dib ayaa loogu beejiyay taasina waa tan damqashada sii xoojisay taasi kuma koobnee saluuga baahay ee silac la nool yahay iyo isa seega nidaamkiya dadweynaha waxa kaloo shacabku ku muujiyeen muuqaallo qof kasta halkiisa ku soo bandhigayo dareenka gubaya waxaan qayb ka ahay saxaxayaasha iyo dadka taageersan baaqa shacab ee ujeedadiisu tahay in loogu yeero dawladda Somaliland in lagu soo noqdo mabaadi'da ku dhisan dastuurka Somaliland ee dadka reer Somaliland ku heshiiyeen dastuurkooda ku qorteen shirweynayaashii laga soo bilaabo 1991kiina lagu dhigay kaasoo ah sababta ugu weyn ee goonistaagga Somaliland loo dejiyay taasi waa in la helo cadaalad sinaan dawladnimo dadka u dhibirsan u nugul taageerta waxbarashadooda caafimaadkooda isla markaana xuquuqdooda asaasiga iyo hantiyadoodana u ilaalisa dawlad dimuqraadi ah doorashooyinka qabata oo dadka shacabka ayna kolka talada ku leeyihiin dawlad ummadoo dhan wada deeqda ummadoo dhan wada leedahay dawladka madax banaan ee xilka qaraabo kiilka iyo qabyaalada iyo waxyaabaha cudurrada dilaaga Afrika iyo dawladaha Soomaalida soo dilay sidaas raadeed waxaan rajaynaynaa ka codsanaynaa dawladda Somaliland waa 29 sanadood baa soo jiray in dib loogu noqdo heshiiskii dalka oo ah dastuurkii Jamhuuriyadda Somaliland shacab ahaan maanta Somaliland badbaado ayay inooga baahan tahay ee dawo uma aha durbaana la tumo waxaan doonaynaa Somaliland qurxoon waxaan rabnaa Somaliland sharciga iyo cadaaladda ay u siman yihiin taajirka iyo faqiirku waxaan rabnaa Somaliland aanu dadkeedu kala lahayn darajooyinka lagu kala sadbursiyo ha Somaliland taas ayaan rabnaa waxaan xoojinayaa maanta inaanay Somaliland u baahnayn durbaana iyo sacab loo tubo xuska 18 May awgii waxaan rabnaa Somaliland 18 May loogu dabaaldego isla xisaabtan dalkan inaga ayaa leh badbaado ayuu inooga baahan yahay sidani maaha si Somaliland ku socon karto maya سيالة تصل لك بعد سوماليلاند ما كنت تاغنتahay ama ma raadin mabaadi'dii min qiyaaskii loo asaastay ee ku xirnanay heshiiska bulsho oo dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland boqolkiiba boqol waxaan aaminsanahay Somaliland inaanay ku taagnayn 29 sano wax loo asaasay ee mabaadi'da saldhigga u ah ee ku xirnan aaraarta dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland maanta dabaaldegaysa in gaar ah ayaa calanka huwan in gaar ah ayaa dantooda durmaan u tumanaysa ma taal sababaan eedhigmay u sii wada xusnaa inta cadaaladda sidaa tahay inta wax wada lahaanshihii maqan yahay inta danyartu dulman tahay in gaar ah ayaa maanta dabaaldegaysa in gaar ah ayaa maanta calankeeda huwan in gaar ah ayaa maanta durmaan tumanaysa ma jirto ujeedo aan oran karo 18 May loo wada dabaaldego muxuu ahaa waxa aynu doonaynay marka aynu la dagaalamayna rejiimkii Maxamed Siyaad Barre haddii aynu maanta 29 sanadood jirayna ma gaadhnay halkaynu doonaynay ma u dhownahay visionkeena iyo aragtideena sidii ma yahay arrimahaas waa arrimo mudan in la isweydiiyo kastoo laga yaabo dadka qaar inay ka baxanaaqaan in la isweydiiyo xagayna u soconaa oo malaha hadda qofka dee su'aalaha noocaas oo kale isweydiiyo waxyaabo kale waa lagu shaabadeeyo laakiin waa su'aal xaq mudan waa su'aal qof kasta oo maskaxdiisu ay critique sameynaysaa oo ay tahay inuu isweydiiyo maanta shacbiga reer Somaliland ee gobolada waxay soo saareen baaq dad boqolaal kor u dhaafaya ayaa baaqa ku saxeexnaa dadkaas waxay ka hadlayaan in
wixii aynu somalilan u samaynay ee sinaan ahaa ee cadaalad ahaa ee wax wada lahaansho ahaa ee midnimo ahaa ee qarannimo ahaa arrimaha inaynaan sidii la rabay uga shaqayn balse aynu beddelkeeda opposite ka nahay oo halkaa joogno halkii ay ahayd inaynu dhaqaale wanaagsan waddankan aynu u abuurno inuu waddanku weli fakri yahay halkii ay ahayd inaynu waddanka la wadaago oo midnimo iyo dadkan oo midnimo qarannimo ah ka dhaxaysaa oppositekeeda kala qaybsanaanta ugu badan waqtiga uu ku sugan yahay waddanku inay hadda tahay halkii ay ahayd in sinaan iyo cadaalad waddanka lagu maamulo in waddanka sadbursi fara badani ka jiro sadbursi dhanka deegaanada ahi ka jiro deegaanada markaan u jeedo waxaan u jeedaa beelaha ah sadbursi dhanka gobollada ahi uu ka jiro oo dhammaantoodna ay yihiin arrimo structural ah dadka justiceka ka hadla iyo cadaaladdu waxay sheegaan marka ay cadaalad darradu ugu daran tahay waa marka ay systemka gasho inta jamhuuriyadda somalilan kala maqan tahay annagu eedhiin may xusi mayno inta jamhuuriyadda somalilan la wada leeyahay la helayo inta calan midaysan la helayo annagu eedhiin may xusi mayno jamhuuriyadda somalilan la wada leeyahay baan rabnaa qaran wada dhisan hees walba qaadnay oo heeso beena qaadnay ma jirto sabab aanu durbaan beena oo aan waxba ka jirin eedhiin may dambe usii tunno qaranka daayartiisa uu helka u tahay ka warqablaanta qaranka kuwii usoo halgamay ku hoos dulma yihiin waxba durbaanada u tumi mayno xaq waxaan ulan inaan isweydiino maalin walba soo banaanbaxna isu soo baxnaya maxaanu ka haynaa dhalinyaro ahaan 30 sano kadib halkee loo socdaa inta cadaaladdu sidaas tahay inta wax wada lahaanshuhu maqan yahay ma soconayso in la isugu yimaado xuska 18 May. maanta waa sanad guuradii kasoo wareegtay xuska eedhiin may waxaan leeyahay eedhiin may 30 sano soo dabaaldegaynay waxaa la keeni weyday in gaara ku shaqaysata waxaan leenahay idinku maanta tuma durbaanka aada usii tuma annagu waa naga dhamaatay ma tumeeno durbaan waxa kasoo soconay ma tumeeno in gaara isku masruufta in gaara ku shaqaysata aada iyo aad badan mahadsantihiin wayda salaamaya dhammaan haddaba maanta waynu ka joogno 30 sannadood maxay noo qabsoomay ma jirtaa somalilan la wada leeyahay ma jirtaa midnimo ma jirtaa cadaalad ma jirtaa wax wada lahaansho jawaabtu waa maya taa beddelkeeda waxaad moodaa inay somalilan ay cid gaarihii ku abtirsanayaan oo iyaga un ay u tahay somalilan haddaba intii saa tahay inta la helayo system cadaaliya wax wada lahaansho iyo somalilan la wada leeyahay no to 18 May celebrations. soo kale somalilan wada lahaanshaheedu ku noqon maayo ama jiritaanka somalilan ku noqon maayo intixaad ku maro wuxuu ku noqonayaa in bulshada reer somalilan ay wax wada yeelato inay waxa ay wada yeelato ay u aragto in qof kasta uu leeyahay ama cid kastoo reer somalilan ay leedahay saa daraadeed si somalilan loo wada yeesho waa in dhaqaalaha dalka loo sinaada aanu caasimada ku koobnaan siyaasiyan waa in yacni reer somalilan ka wada dhex muuqdaan tabashada dastuurka ay qabaan dib loo furo wax wada lahaanshaha dib loo furo talada dalka somalilan oo dhan ay wada yeelato maalinta la dhaho 18 May waxaa lagu sheegaa maalin qaran haba ahaato maalin qaran laakiinse maanta somalilan waa dad dan guud ay ka wada dhaxayso waa dad isu yimi oo samaystay nabad iyo nabadgelyo iyo maamulka sharci bay dhigteen sharcigaasi wuxuu noqonayaa qabyo qoraal weeye 18 Mayna dastuurka ku jirtaa waa maalin lagana tegi karo lana xusi karo iyada oo loo eegayo bulshada reer somalilan ma u dhanta su-aashu waa maya kala badh ama in u dhow ayaa kasoo horjeeda waa muwaadin reer somalilan ah oo garnaqsanaya 29 sano kadib una garnaqsanaya somalilantii waxaa qaw lahaa 29 sano kadib waxaa la xusayaa 18 May 2020 waxaa xusaysa in gaara ayaa maanta dabaaldegaysa in gaara ayaa calanka huban in gaara ayaa danteeda durbaano tubanaysa in gaara ayaa dalka iyo dadka manaafacaadkiisa isku koobtay ma taala sabab 18 May maanta loo xusaa inta cadaaladda sidan tahay inta wax wada lahaanshihii sidan yahay